بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. daawadayaasha qiimaha leh meel kasta oo aad dacallada adduunka iyo daafaha adduunka ka joogtaan, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. salaanta islaamka kadib waxa aad nooga barateen barnaamijyo wacyigelina oo taxana ah. barnaamijka aynu hadda bilaabi doono waxa uu ku saabsan yahay mowduuc aad iyo aad u muhiima, kaas oo ah barbaarinta ilmaha. barbaarinta ilmuhu waa mustaqbalka ummadaha, waa jiritaanka ummadaha. ummaduhu waxay ku kala hormaraan sida ay caruurtooda ugu barbaariyaan waxay iyagu aaminsan yihiin. mashaakilka ummadahana ama mashaakilka ummadeenna salkeedu waxa weeye waa nidaamka tarbiyadda. inaynu ummadeennu siday u nooshahay wax ka bedelnaa waxa weeye in aynu wax ka bedelno sida aynu wax u tarbiyadayno. waayo waxa inoo soo baxay, hadday noqoto hogaamiyeyaal, hadday noqoto qoysas, hadday noqoto dhinac walbo nolosheenna ah, waxa soo baxay waa wax soo saarkeennii, sidaynu nolosha u arkaynay, sidaynu u tarbiyadaynayno. waxaana muuqata markaynu natiijadii soo baxday qiimayno inay natiijadaasi ahayn mid lagu farxo. sidaa daraaddeed ay u baahan tahay in wax badan laga bedelo. arrintaa daraaddeed ayaa waxay ugu dhalisay inaan muddo tiro badan baadidoon u galo sida habka ugu wanaagsan ama sida ugu fiican ee caruurta lagu barbaarin karo. waxa aan bilaabaynaa haddaba inaan wax ka tilmaano mowduuca barbaarinta ilmaha. barbaarinta ilmuhu runtii waa mowduuc sida aan tilmaamay qiimihiisa leh, mustaqbalka ummadeed leh. halka kan waxaa idinkaga muuqda laba sawir. mid sidaad aragtaan waa wiil yar, sawir wiil yar oo soomaaliyeed oo maapka soomaaliya ku dhex sawiran. dhinacan kaleetana waxaa idinkaga muuqata daar dheer oo qurux badan oo la dhisay. arrinta ay isaga xiran tahay ama waxa isaga xiran labadan sawir waxa weeye in ilmahani dhismihiisa iyo tarbiyadiisa uu u baahan yahay waqti ka badan waqtiga la dhisay daartan. haddaad aragti daartan quruxda badan oo lagu weydiiyo imise sano ay u baahan tahay in la dhiso, waxa dhici karta markiiba inaad la soo boodi 10 sano 15 sano. waxa ka muhiimsan waqtiga uu u baahan yahay ilmahani in la barbaariyo, la dhiso caqligiisa, fikirkiisa, garashadiisa, noloshiisa, si qofka loo baahan yahay uu u noqdo. sidaa daraaddeed inaynu ogaano ahmiyadda ugu weyn, inaynu ogaano in ay tarbiyadu tahay arrin waqti u baahan, inay tarbiyadu tahay arrin ama barbaarintu inay tahay arrin dhismuhuna inuu waqti u baahan yahay. waxa aan halkan ku bilaabayaa sidoo kale inaan wax yar idinkaga sheego anigu qofkaan ahay. barnaamijyo badan baan sii daayaa, laakiin haddaan isu kiin sheego, aniga magacayga waxa la yihahda cabdalla cabdiraxmaan nuur shafeey. waxaan ahay shaqadaydu waa macallin. waxaan macallin ka ahay waddanka denmark, magaalada copenhagen. takhasuskayga ama waxbarashadaydu waxa weeye waxaan bartay maadada xisaabta iyo computer science. waxaan ka bartay dalka talyaaniga, magaalada ku taalla ee la yidhaahdo Padova, jaamacad ku taallan ka baxay. haddaan dib u yaro noqdana dugsigii hoose, dhexe iyo sareba waxaan uga soo baxay dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. arrinta marka sidaan idiin tilmaamay igu riixday ama igu dhalisay mowduucan barbaarinta ama tarbiyadda waxa weeye marka aan arkay maxsuulkii ama natiijadii ummadda Soomaaliyeed habarbaarinteedii inay noqotay mid aan miro badan soo saarin oo dhibaato badan soo saartay, ayaan waxaan ka fikiray in loo baahan yahay bal in la sameeyo habbarbaarineed ka duwan kan ilaa iyo hadda aynu wax kusoo tarbiyadayna. runtii inta aan macallin ka ahaa waddankan denmark waa muddo dhowr iyo 10 sannadood ah, waxay ugu dhalisay fikir badan oo waxa aan arkay arrinta ay dadkani waqtiga badan geliyaan oo ihtimaamka geliyaan dadkoodana dhisa
oo qof waxtara oo ma garanaysaa bulshadana waxtar u ah naftiisana waxtar u ah arrinta ka soo saartaa inay tahay tarbiyadda barbaarinta uu gurigiisa ka soo qaato barbaarinta bay'adda iyo xanaanada uu ka qaato barbaarinta iskuulka uu ka qaato barbaarinta waddada ama jidka ama shaarica uu ka qaato oo ah mid isku wada xiran waxaynu haddaba u baahannahay inaynu ka aabe ahaan ka hooyo ahaan mas-uuliyad iska saarno inaynu baranno aqoonta tarbiyadda ama aqoonta barbaarinta waa aqoon aad iyo aad muhiim ah yacni eeg ka soo qaad ilmahani waa mustaqbalkii ummadaha waxaa lagu qiimeeya raasumaalka ugu fiican aynu haysanaa ma aha batroolka dhulka ku jira ma aha beeraha ma aha xoolaha raasumaalka ugu wanaagsan aynu haysanaa waa maskaxda caruurteenna iyo da'yarteen haddii dhulku uu batrool ku jiro ama beero leeyahay ama xoolo leeyahay laakiin ilmahan aan la barin siday u wada shaqayn lahaayeen oo ula soo bixi lahaayeen wax macnaa ma samaynayo marka shayga inoogu qaalisan ee inoogu muhiimsan ee ka ummad ahaan aynu haysanaa waa maskaxda caruurteena sida aynu u tarbiyadeyno ayay mustaqbalkoodu ama aynu u barbaarino ayaa mustaqbalkooduna noqonaya ilmuhu waa ubax waa indhaha muxuu lahaa ku doogsigoodii waa muxuu ahaa sidaan sheegnay mustaqbalka ummadaha oo dhan ummad walibana mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay sida ay da'yarteeda u barbaarayso khayraadka ugu fiican sidaan hore u sheegay ummadu haysataana waa maskaxda da'yarteeda waa arrin dhici karta inaan dadku aad ugu fekerin oo markii khayraadka la yidhaahdo lala soo ordo batroolka lala soo ordo beeraha lala soo ordo xoolaha laakiin waxaynu leenahay wax taa ka muhiimsan oo ah maskaxda ama caqliga garaadka da'yarteenna hadba sida aynu u barbaarino oo u korino ayaynu qani u noqonaynaa ama faqiir u noqonaynaa ilaa ay hadda barbaarinteennii waxay noqotay mid soo saartay dad foqoro ah sabool ah dunida muxuu ahaa maxaa la dhahaa bari iyo galbeed u kala cararay si ay noloshooda u helaan haddaba waxaynu u baahannahay hab barbaarineed ka duwan kii horeynu soo marnay si aynu u soo saarno ummad isku tashan karta dhulkooda khayraadkiisa kala soo bixi karta muxuu ahaa dhulkoodana si nabadgelya ugu noolaan karta waxaan halkan ku tilmaamayaa erayo xasuusina inta badan maxaa la yirahdaa nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka uu siiyey oo aad iyo aad u tiro badan oo aan la koobi karin muxuu ahaa inaynu xasuusteenna badino waayo awlaaddu waxay ka mid tahay nicmooyinka ilaahay siiyo inaynu nicmooyinka xasuusanno oo ku shukrinaa waxay keenaysaa inuu ilaahay inoo ziyaadintaasoo noqon karta caruur badan ziyaadintaasoo noqon karta ilmahan oo tayo fiican ama quality fiican yeesha markaad nicmada ilaahay ku shukrisid ilaahay subxaana watacaala uu ku ziyaadintaasi waxay noqon kartaa waa niri in awlaad kale ilaahay ku siiyo waxay noqon kartaayoo kale in ilmahan aad haysatay ilaahay tayadiisa uu ku hagaajiyo oo mid isaguna is anfaca bulshadana wax u tara noqdo arrinta kale muhiimka ah oo aan doonaya inaadan xasuusiya waxa weeye in carabkaaga iyo gacantaaduba ay noqoto minay bini aadamka uu ka ammaan helo haddaad carabkaaga iyo gacantaada dhowrtid ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhowri gurigaaga wuxuu dhowri awlaadaada waa arrin xasuusina oo aan rabo inaad iyadana aan idinla wadaagtaan arrinta saddexaad ee rabo inaan isxasuusino aadna inooga anfacaysa barbaarinta caruurta waxa weeye haddii ay labadaada waalid nool yihiin inaad ka ducaysatid ood janno ku gashid baari u noqotid adigana awlaadaada baari kuu noqonaya intaad geysatid ayaad helaysaa haddaad waalidkaa baari u noqotid awlaadaada baari kuu noqona haddaad waalidkaa ku caasidid awlaadaada kugu caasina waa cadaaladda ilaahay marka haddii uu waalidkaa dhintay oo maxaa la dhahaa ilaahi subxana watacaala waqtigeedii ay timi waxaa loo baahanya inaad u ducaysid inta badan waynu ilownaa waalidka markay nala loo yihiin uunbaa dhici karta inaynu baari u noqono laakiin waxaa jirta waqti ay ka baahi badan yihiin waqti ay baahi aad uga badan inoo qabaan oo markay dhintaan oy geeriyoodaan inaynu ducada aynan ka ilaawin oo mar walba aynu salaad tukanayno mar walba aynu ilaahay subxaana watacaala u barino inuu waalidkan dembigood dhaafo inuu janno geliyo inuu waxaana jira xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo ah qofka bini aadamka ahi marka uu dhinto acmaashii khayrka ahayd ee uu samayn jiray iyo tii sharka ahayd uu samayn jiray
way dhamaadaan wax loo qoraya ma jiro wuu dhintay ilaa 3 qof mooyaane 3 qof oo ma garanaysaa arrimo wanaagsan ama 3 qaybood oo dadka ka mid ah oo arrimo ay sameeyeen dartood waxa ay acmaashoodii khayriga ahayd loo sii qoray iyagoo dhintay oo xabaash ku jira loo qoray waxa ka mid ah maxaa la yiraahdaa qof cilmi bini aadam ka baray oo cilmigaas lagu anfacay waxa kaloo ka mid ah qof awlaad wanaagsan ka tagay oo awlaadaasi ay u soo duceeyaan marka arrintan ula jeedaytana ahayd in aynu waalidkeen hadday dhinteen u duceyno naxsuusano hadday nool yihiinna aynu baari u noqono mawduuca ayaan gudaha u sii gelaynaa ama kusii soconaynaa waxaa jira 3 arrimood oo sideedaba nolosha aynu rabno inaynu wehel ka dhigano hadday noqoto inaynu caruur barbaarino haddaynu noqoto nolosheenna caadiga hadday noqoto wax walba 3 arrimood oo aynu nolosha rabno inaynu wehel ka dhigano noloshu way dhib badan tahay way xanuun badan tahay way mashaakil badan tahay waxaa jira arrimo haddaynu weheshano in caawinaya oo arrin mashaakilaadka adduunka wax badan inooga taray arrinta ugu muhiimsan uguna horeysa waxa weeye salaada inaynu salaada wehel ka dhigano ilaalino waqtigeeda waa wehel fiican oo adduunka iyo aakhiraba inanfacay arrinta kaleeto aynu rabno inaynu wehelka ka dhiganaa muxuu ahaa barbaarinta caruurtana inaga anfacay waxaa ka mid ah xuska ilaahay inaynu badinaa waa wehel wanaagsan oo stresska ama muxuu ahaa depressionka ama fikirka ama mashaakilkan muxuu la dhahaa casriga ah ama jirooyinkan casriga ah nolosha bini'aadamka kusoo kordhay ee walwalka iyo walbahaarka iyo depressionka waxa kaa dejin kara salaada oo aad badisid xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aad mar walba haysid arrinta kaleeto iyadana aynu rabno inaynu wehelka ka dhigano oo aynu ka dugsanno noloshan adag ee dhibaatada badan ee welwelka badan waxaa ka mid ah qur-aanka ilaahay inaynu akhrino keliya maaha inaynu ciddii baran karta ciddaynu bari karna inaynu barno barasho keliya maaha inaynu ku fikirno oo ku tadabburno oo baahida aynu u qabno aynu kala soo baxno waayo waa dastuurkii ilaahay waa kalaamka ilaahay waa manhajkii ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay in bini aadamka oo dhami uu adduunka si wanaagsan oo nabadgelyo ugu noolaad aakhirana janno ku galo laakiin nasiib darro dadka muslimiinta ah oo baahida maanta u qabaa ma fahamsana qur'aankooda waan ka gudbaynaa waxaan u gudbaynaa 3 arrimood oo aan rabno inaan reerkeenna ehelkeenna qoyskeena inaynu la wadaagno oo aad noogu yar horta runtii haddaynu soomaalinahay waxa ugu horeysa reerkeenna awlaadeenna caruurteenna inaynu jeclaano shuruud la'aan ilmuhu inuu iskuulka ku fiican yahay ilmuhu inuu qur-aanka xifdisan yahay keliya maaha inaynu u jeclaano waxaa dhici karta ilmahaaga qur-aanka xifdisan inaad ka jeclaatid kuwa kale ilmahaaga iskuulka ku fiican inaad ka jeclaatid kuwa kale arrintaas looma baahno ilmahaaga xaaskaaga inaad shuruud la'aan jeclaatid jacayl dhammaystiran inaynu jeclaano arrinta kaleeto oo aan rabno inaynu muxuu ahaa reerkeena la wadaagno waxaa ka mid ah qiimeyn iyo qadarinta iyo qiimeynta walaalayaal waa baahi bini aadamku uu qabo sida aynu cuntada cabitaanka muxuu ahaa hurdada wax walba baahiyahaas asaasiga bini aadamka sidaynu ugu baahannahay ayuu qofka bini aadamka wuxuu ugu baahan yahay in la qiimeeyo in la qadariyo waxay ka mid tahay baahiyaha bini aadamka uu leeyahay sidaa daraaddeed ilmaheenna inaynu qiimeyno oo aynu qadarino waa arrin aynu u baahannahay inaynu la wadaagno oo weli si shuruud la'aana inuu waxbarashada ku fiican yahay inaanu ku fiicnayn looma baahno waxaa loo baahan yahay qiimeynta iyo qadarinta si kasta xaaladiisu ahaado inuu inaga helo haddii inaga waayo cid kalu ka raadsan waxyaalaha runtii yaabka ah oo aan ogaanay waxaa ka mid a in la weydiiyey nimanka kan maxaa la yidhahdaa gaangiska ah ee caruurta yaryar soo jiita war caruurtan maxaad ku akhrisaan oo idinku raacaan ayaa la weydiiyey waxay ku jawaabeen caruurtan waxaanu siinaa waxaanay gurigooda ka helin taasoo ah waanu qiimeynaa waanu qadarinaa waxaan dhanaa nin weyn baa tahay khatar baa tahay waxbaad dili kartaa qiimeyn baan u samaynaa taas ayay noogu yimaadaan oo nagu jecel yihiin arrinta kale waxa weeye daryeel iyo xanaano shuruud la'aana inta badan soomaalidu daryeelka iyo xanaanada way ku wanaagsan tahay laakiin arrimahan kaleeta ee jacaylka iyo qiimeynta ayaynu ku liidanaa iyadana loo baahaya inaynu barano halkan waxaan iyada lafirkeeda uga hadlaynaa 3 arrimood oo aasaas u ah dhaqanka ilmaha siduu u dhaqmayo siduu u noolaanayo siduu u fikirayo 3 arrimood baa walaalayaal aasaas u ah ama 3 shay ayaa aasaas u ah 3 shay ee aasaaska u ah
arrinta u horeysa waxa weeye sida ilaahay subxaanahu watacaala ilmahan u abuuray khalqigiisa siduu ilaahay subxaanahu watacaala u abuuray qof walba oo bini aadamka ahi si goonidiisa ayuu wuxuu u yahay qof gooni ah way dhici kartaa qof sawirkaaga muuqaalkaaga oo kale leh inuu jiro way dhici kartaa qof ma garanaysaa dabeecadaha qaar aad isaga mid tihiin laakiin adduunkan ma jiro qof adigoo kale ah adigu waxaa tahay qof unique ah keligaa baa tahay adduunka marka ilmahan habdhaqankiisa waxa saameyn ku ah siduu ilaahay subxaanahu watacaala u abuuray laba ilmo oo walaalo ah ayaa midna uu yahay ilmo degan midna uu yahay ilmo qalqaali ah arrinta kale ee ilmaha habdhaqankooda ama barbaarintooda saameynta kule waxaa ka mid a tarbiyadda uu waalidkiis uu ka helo tarbiyadda uu waalidkii ka helo ama barbaarinta uu waalidkii kala kulmaa saameyn bay habdhaqankiisa ku yeelata ilmahani siduu u dhaqmayo waxaanu niri arrinta koowaad waxa weeye siduu ilaahay subxaanahu watacaala ilmahan u abuuray arrinta labaadna waxa weeye tarbiyadda ama barbaarinta ilmahan uu waalidkii siiyo arrinta saddexaad ee iyaduna saameynta ku leh habdhaqanka ilmahani siduu u dhaqmaya waxa weeye deegaanka ku xeeran iyo saameynta uu ku leeyahay asxaabtiisa iskuulka uu tago meelaha kubadda uu ku ciyaaro meelaha uu kusoo fiidsado dadka ay sheeko wadaaga yihiin arrimahaasoo dhan qofka way saameeyaan wayna qaabeeyaan qaab nololeedkiisa habdhaqankiisa siduu u fekerayo ayay maxaa la yidhahdaa saameyn ku yeeshaan saddexdaas arrini marka waxa weeye saddexdaas arrini waxay saameyn ku yeeshaan habdhaqanka ilmaha sida ilmaha ilaahay subxaanahu watacaala ilmahan u abuuray barbaarinta ama tarbiyadda uu waalidkii ka helo deegaanka ku xeeran iyo saameynta uu ku leeyahay waxaa jira saddex shay oo tarbiyadda ilmahaaga wax ka bedelaya saddex shay oo tarbiyadda ilmahaaga wax ka bedelaya ama aasaas u ah arrinta koowaad waxa weeye inaad macluumaad heshid inaad aqoon heshid oo waxaana niri barbaarinta ama tarbiyadaynta ilmuhu waa aqoon aad u ballaaran muhiim u ah waalid kasta inuu barto ayna khalad tahay inaad qoys samaysatid ama caruur aad dhashid adigoon aqoon u lahayn sidii ilmahan aad u barbaarin lahayd waayo qofna haddii aynu u baahno haddii qof xanuunsanayo waxaynu ula cararnaa dhakhtar waana arrin daruuri oo loo baahan yahay laakiin waxa nasiib darro ah qoyska barbaarinta oo ahaa nolosha shayga ugu aasaasisanaa in la iska guursado iyadoon aqoon loo lahayn barbaarinta ilmaha iyadoon aqoon loo lahayn ahmiyaddii qoyska arrinta kaleeto ee ilmahaaga habtarbiyadayntiisa ama habdhaqankiisa wax badan ka bedelaysa waxa weeye habka sidaad u fekeraysa in badan oo ka mid ah sidaynu u noolnahay waxa saameyn ku yeesha habfikirkeena marka waxaynu niri number one waxaynu u baahnahay inaynu macluumaad helno aqoon inaynu helno inaynu kutubta akhrino oo aynu ogaano hababka ugu wanaagsan ee caruurta loo barbaariyo loo tarbiyadeeyo arrinta kuguma filla ama maxaa la yidhahdaa inaad macluumaad heshaa ma bedelayso habdhaqankaaga shayga muhiimka ah ee isagana loo baahanya in wax laga bedelaa wax weeye saynu u fikirayno inaynu wax ka bedelno ayaa loo baahan yahay marka saddexaad ayaa wax loo baahan yahay inaynu habdhaqankeena wax ka bedelno waayo inaad bugaagta soo akhrisid macluumaad heshid kaama dhigayso qof kale waxaa loo baahan yahay inaad samaysatid qorshe aad habdhaqankaaga 24 saac markaad qiimaysid 24 saac maxaan u baahanahay inaan wax ka bedelo waxaan u baahanahay inaan xanaaqayga yareeyo waxaan u baahanahay inaan waqtigayga sida fiican uga faa'iidaysto waxaan u baahanahay inaan waqti carruurtayda la qaato la sheekaysto waxaan u baahanahay in aad maalin walba wax yar wax ka bedesho waxaad samaysan kartaa qorshe ah inaad isbuuciiba in yar oo ka mida hab nololeedkaaga habka qoyskaaga guriga inaad wax ka bedeshid in yar oo ka mid ah arrinta muhiimka waxa weeye maalin wax kuma bedeli kartid si kasta ood niyad sami u haysid si kasta ood wanaag u dareemaysid ma aha noloshu sunanka sida ilaahi subxaana watacaala adduunka u abuuray iyo sharciyada uu dhigay wax maalin ku bedelma ma jira waxay u baahan tahay qorshe tartiib ah ood ku fikirtid isbuucan maxaan gurigayga ka bedelaa waxaan rabaa in ilmahaygu wax akhriska ku wanaagsanaado maxaan anigu habdhaqankayga ka bedelaa waayo ilmahaagu waxaa la yidhaahdaa ilmuhu waa hadhkaaga adiga hadhkaaga ama hooskaaga weeye sidaad adigu dhaqantid buu u dhaqmaya
haddaan rabo inuu ilmahaygu wax akhriska ku fiicnaado waa inaan anigu wax akhriskii akhriyaa si uu aniga iga barto waa inaan guriga u sameeyaa saacad wax akhris kasoo qaad inaan dhahno 7 ilaa 8 6 ilaa 7 reer walba isaga garanaya qorshaha noloshiisa inuu yiraahdo saacadaasi waa saacada wax akhriska computerka la daminaya telefoonka la daminaya tv-ga la daminaya suurtagal ma aha inaad adigu tv iyo telefoon ku mashquulshid ilmaha tiraad wax akhriso cadaaladna ma aha ilmuhu iska ka eegi mid kale macna uma sameynayso laakiin ilmuhu markuu arko in aabihiisa wax akhrinaya ee kutubkii akhrinaya hooyadii wax akhrinaysa gurigii dhan wax la akhrinayo wax akhrisku macna u sameynaya marka arrintan ula jeeday waxa weeye in aad hab dhaqankaaga wax ka bedeshid waayo inaad macluumaad heshid oo kutub soo akhrisid muxaadarayn dhageysatid sheekh hebel dhageysatid qof kale kaama dhageyso waxa loo baahan yahay qorshe inaad noloshaada u samaysid oo aad tiraahdid maanta laga bilaabo noloshayda waxaan ka bedelayaa taa iyo taa iyo taa iyo taa saddexdan arrimood marka waa saddex arrimood oo isku xiran wayna kala horeeyaan waa muhiim inaad macluumaad heshid muxaadarooyin dhageyso qof kasta oo aqoon u leh waxaa la yiraahdaa cilmiga barbaarinta ka dhageyso dadka kala sheekayso sidaad u fikiraysid bedel qorshe u samee hab dhaqankaaga waayo haddii kale labada waxaad soo aqoonta aad soo dhageysatid ama soo akhrisid haddaadan muxuu ahaa dhaqan gelinin waad ilaawaysaa laba isbuuc kadib waad ilowday marka si waxani ay wax natiijo leh u noqdaan oo miro dhal u yeeshaan waxaad samaynaysaa inaad hab dhaqankaaga wax ka bedesho casharada soo socda waxaan samayn doonaa inaan samayno maxaa la yidhahdaa howlahan aad hoos ugu galno oo aan samayno sida aad u samayn kartid waxaan u gudbaynaa mawduuca ah sidii marka aan tilmaamay sawirkani wuxuu tilmaamayaa arrintii aan ka hadlaynay oo ah inaad macluumaad heshid hab fikirkaaga wax ka bedeshid hab dhaqankaaga wax ka bedeshid waxaa loo baahan yahay cycleka inaan saa ugu soconno inaynu macluumaad helno hab fikirkeenna wax ka bedelno hab dhaqankeenna wax ka bedelno inaynu macluumaad helno hab fikirkeenna wax ka bedelno hab dhaqankeenna wax ka bedelno sidaas ayaa nolosheen isu bedelaysaa laakiin inaad macluumaad soo heshid muxaadaro dhageysatid kitaabkan dhageysatid qof kale kaama dhageyso waxaa shaygan muhiim ah aad u muhiima oo markaad macluumaad heshid aad iyo aad u muhiima fikirkaaga inaad wax ka bedeshid iyo inaad hab dhaqankaaga wax ka bedeshid waan ka gudbaynaa halkan waa hadal uu yiri nin la oran jiray Albert Einstein wuxuu yiri kuma xallin karno mashaakilaadka isla caqligii iyo isla fikirkii aan ku fikiraynay markii dhibaatadan ay jirtay ama aynu abuurnay waxa loo baahan yahay caqli ka sarreeya caqli ka duwan sidaa daraadeed mashaakilkan inaga haysta barbaarinta dhibaatada inaga haysata waxaynu u baahannahay inaynu la nimaadno caqli iyo aragti ka duwan taynu maanta wax ku barbaarino waayo taynu maanta wax ku barbaarino natiijadeeda waynu aragnay waxaynu u baahannahay aragti iyo caqli ka duwan taynu maanta wax ku barbaarino oo aynu la nimaadno fikir ka duwan halka kan waxaan ka gelayaa oo si degdega uu tilmaamayaa saddexda marxaladood ee tarbiyadda carruurta waa saddex arrimood oo dadaal xaggayga ah waxaa dhici karta qof kale hadduu kuu sheego inuu si kale u kala saaro xilliyada tan laakiin waa saddex marxaladood oo tarbiyadda carruurtan u kala saaray xilliga koowaad waxaa ku magacaabay xilliga layliyidda ama xilliga ilmahan lala qabadsiinayo oo inta badan la isku dayayo habdhaqankooda say wax u samaynayaan habdhaqankooda in wax laga bedelo oo la dhiso oo la toosiyo xilliga saddexaad waxaa la yidhahdaa xilliga tilmaanta iyo dhisida fikirkooda waa 9 ilaa 12 sano da'da ilmuhu markuu jiro waxaa loo baahan yahay waqtiga in badan oo ka mida in carruurta lala sheekaysto waa loo baahan yahay xitaa xilliyada sheekadana inay kasoo bilaabato ilmuhu markuu dhashaba isagoo xitaa hadal aqoonin in lagu bilaabo in lala hadlo laakiin xilliga kan baahi badan baa waxaa loo qabaa in ilmaha waa xilliga uu dhismo ilmuhu sawirka nolosha uu ka haysto ilmuhu siduu nolosha u arkayo markaa waa in aad xilliga waqti badan la qaadataa oo nolosha sida saxda ah aad ugu tilmaanto xilliga saddexaad waa xilliga ilmuhu markuu ka weynaado 12 sano xilligan waxaan ku magacaabay xilliga dulqaadka iyo wadahadalka dulqaad badan iyo wadahadal tiro badan ayaa da'daasna loo baahaya waxaynu qayb walba ugu gooni yeeli doonaa 10 dhan baynu waxaan uga hadli doonaa sida ilmaha loo barbaariyo marka uu jiro xilligaas markuu dhasho ilaa 8 sano markuu gaarayo waxaynu 10 dhan oo sida kan oo kale ah aynu
ugu talageli doonaa ilmuhu markuu 9 ilaa 12 sano jiro waxaan ugu talageli doonaa ilmuhu markuu teenage-ka yahay ama muxuu ahaa da'daas uu yahay 12 ka weyn inaan isagana 10 gooni ugu talagalno sidii markii hore aan tilmaamay aqoon tarbiyadu waa aqoon u baahan ama ka kooban theory qofku inuu helo iyo inuu wixii uu ogaaday dhaqan geliyo marka waa aqoon isugu jirta maxaa la yiraahdaa qofkii inuu macluumaad soo helo iyo inuu isla markaa macluumaadkii uu dhaqan geliyo waxaynu hadda ka hadlaynaa ahdaafta tarbiyada ilmahan inaynu tarbiyadayno ama barbaarinno hadafka aynu ka leenahay muxuu yahay bini aadamku uu ku kala duwan yahay hadafka uu ka leeyahay barbaarinta ilmaha waxayna ku xidhan tahay ilmaha waalidkani ama ummaddani waxay aaminsan tahay ayaa hadaf u noqda barbaarinta ay awlaadooda ku barbaarinayaan innaga muslin ahaan ilmaha hadafka aynu ka leenahay inaynu barbaarinaa waxa weeye in ilmahani uu aakhiro janno galo adduunkiisana uu noqdo qof risiqiisa isagu la soo baxa oo shaqaysta oo ma garanaysa adduunkana ku guulaysta aakhirana janno gala laakiin way kala weyn yihiin wayna kala muhiimsan yihiin hadduu ilmahaagu aakhiradiisu badbaado oo qof saalixoo wanaagsan adduunka ku noqdo haddaanu risiq badan ilaahay u qorin walwal badan ma leh laakiin haddii ilmahaaga adduunka waxa maal yaala loo soo jamciyo laakiin qof ma garanaysa aakhiradiisii ay liidato ama muxuu ahaa xiriirka isagii ilaahay uu hooseeyo ay tahay muxuu ahaa hadafkii aynu ka lahayn tarbiyadda mayna gaarin waayo labada hadaf way kala muhiimsan yihiin hadafka koowaad waxa weeye inuu ilmahaynu aakhiro badbaado sidaynu inaguba u doonayno inaynu aakhiro badbaadno isla markaana uu noqdo qofaan bini aadamka wax weydiisanne noqdo qof isagoo kasabkiisa ama risiqiisa la soo baxa hadafkaasu waqti islama bedelo hadafkan ayay lahaayeen saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam in hadafka ay ka lahaayeen awlaadooda inay barbaariyaan wuxuu ahaa inay ilmuhu aakhiro janno galo adduunkiisana guulaysto hadafkaasaynu inagu leenahay 100 sano kadib saxaabada nabiga calayhi salaam dad muslimiintii noolaa hadafkoodu kaasuu ahaa isma bedelin 1000 sano kadib muslimiinta joogtay hadafkoodu kaasuu ahaa isma bedelin muslimiinta inaga dambaysa 1000 sano kadib muslimiinta iman doona haddii adduunku sii jiro hadafku kaasuu ahaanaya isma bedelo waqtina kuma xidhno hadafkaas ayaa qofka muslimka ahi ka leeyahay ilmihiisa barbaarintiisa oo ah ilmahan inuu aakhiro guulaysto adduunkiisana uu maxaa la yidhaahdaa uu noqdo qof noloshiisa ku filan laakiin waddada hadafka loo maraya ayaa isbedesha tan way kala duwan tahay hadafku isma bedelo laakiin waddada loo marayo waddada lagu gaarayo inuu ilmahani aakhiradiisa guulaysto adduunkiisana guulaysto waa mid isla bedesha dadku waqtigay nool yihiin aqoontay leeyihiin dhaqanka ay haystaan tarbiyadda waxaan ka soo qaadaynaa hadafka ah waalidka markaad soo qaadatay ama dadka aniga da'dayda ah markii dugsiga qur-aanka lala geynayay macallinku wuxuu ahaa macallin ul haysta haddaad casharka kasoo bixi weyday ku garaacaya haddii maxaa la yiraahdaa aad casharka kasoo bixi weyday waalidka wax dhici karta inuu ku garaaco laakiin midna xumaanka ma aha waalidkaana nacayb kuu qabo kuma garaacaynin macallinkuna nacayb kuu qabo kuma garaacayn laakiin waxay ahayd ummaddu sidaa xilligaa siday u arkaysay in ilmahan maslaxadiisu ay tahay baa la samaynayay inay sidaa maslaxadda ama waalidka iyo macallinku waxay u arkayeen ilmuhu haddii sida aan la samayn inaan wax baranayn dadkoo dhanna way isku raacsanayn oo cid ka doodi jirta iyo cid ka hadli jirta ma jirin laakiin waqtigan xaadirka ah way isbedeshay oo maxaa la yidhaahdaa ilmaha in la garaaca arrin saxa maaha waxaana la ogaaday inaysan arrin wanaagsan ahayn in ilmaha la garaaco ay keentana ilmuhu inuu baqdin aan loo baahnayn uu yeesho marka waddada tarbiyadda ama waddada loo maraa waxaynu niri waxay ku xiran tahay ummaddaasi aqoontay leedahay dhaqaalahay haysato ilbaxnimaday haysato dadka inaga dambayn doona oo 100 sano kadib iman doona sida aynu caruurta u barbaarino ama u tarbiyadayno si ka duwan bay la iman doonaan waayo waqtigeena ayaa kala duwan waxaan halkan kusoo qaadaya hadal aad u qiimo badan uu yiri muxuu ahaa
محو الله يرهدا علي بن أبي طالب خليفة أفراد المسلمين أو هذا أو قيمة بدن موضوع عن بربارنتنا خصوصية وحجري وح خلط إن وددي أديك اللي وجسوا تربية المهاجة كتربية وايو اس وقت من ولدين وهذا الرنتي آدي أدو قيمة بدن أو أباها إن حروف ذهب اللي وقر المهاجة هأتربيدين سيدي أديك والدك كوسو تربية وايو اسكو وقت من ولدين قفل وقت يسونوليها nolol gooniya xadaarad gooniya ilbahnimo gooniya aragti gooniya dadku nolosha uu ka haysta marka waxa wanaagsan in aadan ilmahaaga u tarbiyadeen ama u barbaarin sida adii lagu soo tarbiyay malihi ulama jeedo wixii wanaagsanaa ee waalidka ku baray oo dhanto laakiin oran sida wadadaas aniga la soo mariyay aabahay waa garaac jiray ilmahayga inaan garaacan raba may taas waa mid la diiday halkan waxaan uga hadlaynaa saddex arrimood oo aad u muhiim ah ila fahma ila qaata waxaan aad u jeclahay koorsadan intaad la soconaysaan waa aqoon waa mawduucan runtii muddo dhowr iyo 10 sano ka badan baarayay waxaan jeclaan lahaa inaad qalin iyo buug haysataan oo aad mawaadiicdan muhiimka aad qorataan hoos ka xariiqdaan halkan waxaan uga hadlayaa tiirarka tarbiyadda sida wax waliba uu leeyahay tiirar haya wax kasta oo dhisan barbaarinta waxaan ku tilmaanay dhisme markii ugu horreysay aan ka hadlaynay sida daraadeed dhismo waliba wuxuu u baahan yahay tiirar barbaarintu waxay u baahan tahay saddex tiir oo aasaas ah oo aan midkoodna laga maarin tiirka koowaad waxa weeye inuu xeer sugan jiro ilmahan waxa aad maanta u diidid aad ku tiraahdeen maya bari waa inaad u diidaa bari dambe waa inaad u diidaa macnaha inaad maanta tiraahdid arrin u diidid oo aad bari u ogolaatid waxaa dumay oo isku soo dhacay tiirarkii tarbiyadda maalintaa wixii ka dambeeyay ilmuhu waxba kaama dhageysanayo waayo shalay waxaad u diiday waad u ogolaatay wuxuu ogaanayaa inaad berrina u ogolaanaysid waa muhiim inaad arrintan hoos ka calaamadaysataan barbaarintu waxay u baahan tahay xeer sugan maya ilmahaagu inuu barto maya inay maya tahay arrinta tiirka labaad ee barbaarintu leedahay ama tarbiyaddu leedahay waxa weeye ku celcelin qofka bini aadamka sida dabiicad ahaan bini aadamka sida ilaahay inoo abuuray sidaynu wax u baranaa waxa weeye maalin wax kuma barano waxaynu u baahannahay waxaynu rabno inaynu baranno inaynu ku celcelino lagu celceliyo isla markaa dulqaad loo yeesho wax kasta oo lagu celcelinayaa dhib bay la imanayaan in dulqaad loo yeesho ilmaha waxaad ka celinaysid xeerkii sugnaa aan dhahnay waa inuu jiraa waa inaad ilmaha ku celcelisaa maya hadhow wuu la qabsanaya mayadaas wuu la qabsanaya ku celcelintaas adiga wax lagaaga baahan yahay dulqaad inaad ogolaatid inaad ilmaha maya ku tiraahdid maya beri hadduu ku weydiiyo aad tirahdid maya beri dambe ku weydiiyo aad tirahdid maya ku celcelintaas iyo dulqaadkaas ayaa waa tiirka labaad ee maxaa la yidhahdaa ama xeerka labaad ay leedahay barbaarintu tiirka saddexaad ee ay leedahay barbaarinta ama tarbiyaddu waa ciqaab iyo abaalmarin runtii waa arrin aad u muhiima oo ma garanaysaa saddexdan tiir haddaad qur'aankeenna eegtid sida ilaahay subxaana watacaala bini aadamka wax ugu sheegaya oo u barbaarinaya oo fikirkooda u dhisaya waa saddexdaa arrimood qur'aanka haddaad eegtaan arrimaha intaasoo goorbaa waxa soo noqonaya qiyaamaha in laga sheekeynayo intaasoo goorbaa waxa soo noqonaya in muxuu ahaa jannada laga sheekeynayo intaasoo goorbaa waxa soo noqonaya in cadaabta laga sheekeynayo eeg marka qofka bini aadamka ay si uu waxan u qaato wax u baahan yahay xeer sugan inuu jiro wuxuu u baahan yahay ku celcelin iyo dulqaad sidoo kale qur'aanku wuxuu inoo sheegayaa tiirka saddexaad oo ah ciqaabta iyo abaalmarinta qofkii ilaahay subxaana watacaala wadadiisa mara inuu helayo muxuu ahaa janno iyo abaalmarin wanaagsan qofkii wadada ilaahay ka leexdana uu helayo cadaab iyo naar qul marka saddexdan tiiri waa saddexda tiir ee ay leedahay barbaarintu waana saddex tiir oo aan muddo badan iyo fikir badan markaan qur'aanka ku fikirayay saddex tiir oo iiga soo baxay wey waxaan rabaa halkan inaad ila wadaagtaan sheeko yar oo laba ilmood oo aan macallin u ahaa iyo anigana dhex martay waxaan ku iri markaad khalad samaysaan yani waxaan sheegayaa waxaan rabaa inaad ila fahamtaan mushkiladda barbaarinta ee ummadeenna haysata
su-aashaan weydiiyey waxay ahayd haddaad khalad samaysaan aabbe iyo hooye maxay idinku sameeyaan iyagoon is ogeyn iyagoon ma garanaysaa buu ilmo waliba wuxuu yidhi aniga markaan khalad galo hooye waxay igu tiraahdaa qolkaaga gal kama soo baxaysid galabta oo dhan kama soo baxaysid ilmaha saaxiibadan lama ciyaaraysid haye kadibna maxaa dhacaan idhahdaa waxay yidhahdeen 20 daqiiqa kadib hooye way ilowdaa isku mar bay yidhahdeen labadaas ilmood 20 daqiiqa kadib hooye way ilowdaa kadibna waan iska soo baxaa eeg arrinta aynu ka hadlayna maxay ahayd xeer sugan inuu jiro xeer sugan inuu jiro ciqaabtani macno ma samaynayso eeg arrintaan raba inay la fahamta waxa ilmaha maxaynu ciqaabaynaa waxaynu ciqaabaynaa cadowtooye ma aha xumaanna ma aha ilmahani inuu wax ka barto khaladkiisa waxaynu ugu dadaalaynaa ilmahani inuu ilmuhu khaldamin ma aha ilmuhu waa khaldamaya adigaa khaldamo qof kastoo bini'aadam uu khaldamo laakiin waxaan diidaynaa ilmaha in dhaqan uu u noqdo arrintan xun waxaynu ilmaha uga dadaalaynaa waxa weeye arrintan xuni inay dhaqan u noqoto sidaa daraaddeed ba markuu arrin khalad sameyn waxaan leenahay may ha samayn hadduu mar dambe sameeyo waxaan leenahay may ha samayn arrinta saddexaad waxaan haddaad mar saddexaad samaysid ogow ciqaab baa iman doonta oo taa iyo taa iyo taa oo ah wuxuu jecel yahay in muxuu ahaa loo ballan qaaday in la yidhaahdo laguma soo iibinayo way kala duwan tahay 10 baynu uga hadli doonaa ciqaabaha iyo abaalmarinta ilmaha la siiyo iyo mid waliba faa'iidada leedahay iyo waxtarka ay leedahay iyo faa'iido darrada ay leedahay laakiin inaynu ogaano way mushkilaadka ama dhibaatada ummadeenna barbaarineed haysataa waxa weeye ilmaha marka lagu yiraahdo galabta oo dhan qolkaaga kama soo baxaysid oo 20 daqiiqo kadib la soo fasaxaa waxay tilmaamaysaa in nidaamkaasi tarbiyadda ee qoyskaasi uu yahay mid burburaya waa ilmahaasi berri kadib markii hooyada tiraahdo kama soo baxaysid waa yahay waranaya wuxuu yahay 20 daqiiqo kadib ka soo baxay halkan waxaan uga hadlaynaa waxyaalo ka caawinaya casharkani sidiisaba waa cashar hordhaca casharo silsilada oo isku xiga ayaynu mid waliba gudaha u geli doonaa oo si fiican u faahfaahin doonaa laakiin halka kan waxaan rabaa inaad ila wadaagtaan waxyaalo ka caawinaya barbaarinta ilmaha arrinta koowaad waxa weeye ducada dadka muslimiinta ahi way sahladaan meel walba oo aan tago qof walba aan la hadlayna waan u sheegaa ducadu waa hub aysan dadka muslimiinta ahi ka faa'iideysan oo aysan isticmaalin arrinta waa arrin muhiima minute kasta daqiiqad kasta ilaahi subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay addoommadiisa barya addoommadiisa ilaahi subxaanahu wa tacaala barya ilaahi subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay qur'aanka markaynu eegno bal eeg walaalayaal qur'aanka markaynu eegno ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo guurinayaa ambiyada ilaahay oo mid waliba uu ilaahay baryayo wuxuu ilaahi subxaanahu wa tacaala inoo soo guurinayaa nebi ka mida nebiyada ilaahay oo arrin mashaakili qabsaday nebi caafimaad darra qabsatay wuxuu samaynayaa inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala gacmaha ilaahay u hoorsado sida nebi ayub waxaynu arkaynaa nebi mashaakil naftiisa khatar gashay sida nebi yuunus oo xuut u liqay wuxuu ku badbaadayaa maxaa weeye baryada iyo ducada ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaynu arkaynaa maxaa la yidhahdaa nebi zakariya oo awlaad la'aan hayso oo ilaahi subxaanahu wa tacaala gacmaha u hoorsanaya oo awlaad weydiisanaya oo ilaahi subxaanahu wa tacaala awlaaddii uu siinayo markaad qur'aanka iyo ambiyada aad kulligood aragtid waxaad arkaysaa nebi waliba mashaakilaadka nolosha ka mid ah baa qabsanaya wuxuu ku badbaadaya waa ducada uu ilaahi subxaanahu wa tacaala gacmaha kor ugu hoorsanaya waa arrin muhiima waa hub loo baahan yahay inaynu mar walba u isticmaalno nolosha u isticmaalno awlaadeenna aynu u ducayno waxaynu arkaynaa ambiyada ilaahay oo dhan awlaaddooda way ducaynayaan inaynu awlaadeenna u ducayno arrinta labaad ee muhiimka ah ee kaa caawinaysa tarbiyadda ama barbaarinta waxa weeye in aabbaha iyo hooyadu isku aragti ka yihiin nolosha isku aragti ka yihiin tarbiyadda iyo barbaarinta ilmahana isku aragti ka yihiin haddii hooyadii tiraahdo masar baan u guuri aabbihiina yidhahdo maya london baan deganaanaynaa mushkilad wey haddii aabbuhu si u arko maxaa la yidhaahdaa aragtida ilmaha barbaarintooda hooyadiina si kale u aragto mushkilad bay noqonaysaa ilmihiina ma degayo qoyskuna ma yeelanayo aragti saxa oo barbaarinta ilmaha arrintani saddexaad waa arrin aad iyo aad walaalayaal muhiima waxa weeye inaad adiga iyo ilmahaagu isku dareen tihiin maxaan ula jeedaa horta arrinta ugu muhiimsan waxa weeye adiga iyo ilmahaagu inaad isku af ku hadlaysaan haddaad adiguna kasoo qaad inaad ingiriiska degan tahay haddaad adiguna luqadda ingiriiska xogaa yar ka taqaan ilmahaagiina af soomaaliga oo xogaa yar ka yaqaan sideed u wada xiriiraysaan
oo arrimo waaweyn oo muhiima uga wada hadlaysaan sideed intaad ilmahaaga ula fariisatid fikirkooda u dhisaysaa marka waa muhiim aad iyo aad bay muhiim u tahay inaad adigii ilmahaagu isku dareen tihiin isku wax ku farxaysaan Soomaaliya dhulkaagii wax adigu aad qiimeynaysid ilmahaagu inuu kula qiimeynayo haddaad adigu wadankaaga iyo dadkaaga weyneynaysid ilmahaagiina inuu u arkayo dad rafaadsan oo masaakiin oo gaajaysan oo aanu macno u samaynaynin oo uu qaato fikirka reer galbeedka Afrika ay ka aaminsan yihiin waa mushkilad runtii waxaan ammaanayaa waalidiin badan oo carruurtooda geeya wadankii u fasax geeya qaarkood ay sanad geeyaan qaarkood 2 sano ay geeyaan qaarkood 3 sano ay geeyaan oo soo celiyaan ilmihii oo dhisan luqadiisu dhisan tahay akhlaaqdiisu dhisan tahay diintiisu dhisan tahay waa arrin muhiima inaad ilmahaaga isku dareen tihiin isku luqad tihiin isku aragti nolosha aad ka aaminsan tihiin arrinta afraad ee ka caawinaysa barbaarinta ilmahaaga waxa weeye xalaal cunida wacni waxaan tusaalayaal badan nolosha ka nahay ama markhaati ka nahay waalidiin badan oo ma garanaysaa hantida ummadda dhacay oo boobay oo carruurtooda ay ka go'day carruurtii ka xumaadeen waa muhiim walaalayaal waayo waxa isku xiran xalaal cunida iyo ducadaada in la aqbalaa waxay ku xiran tahay inaad xalaal cuntid sidaa daraaddeed waa muhiim inaynu nolosheenna ku salayno in risiqa aynu cunayno carruurteenna siinayna inuu xalaal aynu kasabkeenna dhididkeenna inuu yahay arrinta kale ee ilmaha barbaarintiisa kaa caawinaysa waxa weeye cibaadada inaad cibaadadaada wanaagsan tahay salaadaadu fiican tahay soonkaagu wanaagsan yahay wuxuu badbaadinayaa wuxuu noqonayaa kayd u yaala ilmahaaga ka ilaalinaya xumaanta wuxuuna u yahay dugaal ama dugsi ayuu wuxuu u yahay awlaadaada ayay cibaadadaadu waxay u tahay dugsi sidaa daraaddeed waa muhiim inaynu cibaadada hagaajinno oo aynu ku dadaalno arrinta kale ee kaa caawinaya muhiimna ah barbaarinta ilmaha waxa weeye inaadan dadka kale ceebahooda raacraacin waayo haddaad dadka kale ceebahooda ku mashquushid adigana ceebahaaga waa lagu mashquuli arrintaa aad bay u baahan tahay aad bay dadka Soomaalida ugu badan tahay waa la isku mashquulaa waa muxuu ah qofkii inta uu noloshiisa caadiga ahaa mustaqbalkiisa aakhira ka fikir lahaa qof waliba wuxuu ku mashquul qofka walaalkiisa waqtigiisa wuxuu ku dhumi xamasho iyo dabagal dad kale qof kale oo walaalkiis ah ceebihiisa marka walaalay qof bini aadan oo kasta oo aan ceeb lahayn ma jiro qoys kasta wuxuu ku liito u jira qof kasta wuxuu ku liito u jira qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu iska hagaajiya way jirtaa sidaa daraaddeed waa muhiim inaynu ku mashquulno ceebaheena aynu ku mashquulin ceebaha dadka kale waxaynu uga gudbaynaa halka kan inaynu ku tilmaamno noocyada waalidka marka laga hadlayo inta badan muxuu ahaa waalidka marka laga hadlayo tarbiyadda carruurta waxa saameyn ku leh baynu niri waalidku habka uu nolosha u arko waxaa jira waalid askari ah oo macnaheedu yahay ilmaha aniga sidaa iri wada hadal ma jiro samee waa samee ilmaha ku barbaara ama uu barbaariyo waalid askari ah oo aan muxuu ahaa ilmaha wada hadal la gelin amarkiisu uu cad yahay ilmaha hadduu khaldo ciqaab markiiba la siiyo waxay keentaa inuu ilmahaasi uu noqdo ilma aan isku kalsoonayn way dhici kartaa inuu tooso muddo yar inuu tooso ilmahaas ama inuu tooso oo khaladaadka uu isaga ilaaliyo baqdin uu waalidkii ka baqayo laakiin waxay leedahay maxaa la yidhaahdaa natiijo xun oo ah ilmihii inuu kalsoonida ka dhunto oo waxa uu samaynayo mar walba uu noqdo ilmo khalkhala arrinta kaleeto khatartay leedahay waxa weeye inuu ilmuhu u nuglaado cid kasta oo uma garanaysa ka awood badan inuu yeelo waayo aabihiiba waalidkiiba wuxuu ku tarbiyeeyey tarbiyaddan askariga oo ah sidaa samee laakiin ilmaha in la baro inuu caqligiisa isticmaalo in arrintu haddaanay sax ahayn uu yidhaahdo maya waxay caawinaysaa ha dhowto in markuu waxaan khalad ahayn loo sheego uu yidhahdo maya ma samaynayo haddii la doono ha laga awood bato haddii la doono ha la dilo laakiin ilmuhu inuu diidi karo laakiin haddii waalidku uu yahay waalid askari ah amarkiisu uu socdo oo ilmaha aan wada hadal lala gelaynin oo waxaan samee ilmuhu markuu saa ku tarbiyadoobo arrin aad u dhibaato badan nooca labaad ee waalidka ah waa waalid macallin ah oo kaa cagsigiisa ah ilmihii saxaya oo khaladkiisa indhahan ka qabsanayn laakiin isla markaa ilmihii la hadlaya oo maxaa la yidhahdaa si degan ula hadlaya
oo khaladkiisa toosinaya oo xoogga saaraya khaladka ilmaha inuu toosiyo ma aha ilmaha inuu ceebeeyo kaasaad aabe wiil xun baad tahay hooyo wiil xun baad tahay sababtoo kaasaad samaysay ma aha hooyo wiil fiican baad tahay laakiin khaladkanaad samaysay waxaa loo baahan yahay inaan saxnaa waa khaladkaaga adigu laakiin ilmo fiican baad tahay waalidka saddexaad waxa weeye waalid aad u dabacsan oo ilmaha aan dan iyo heella ka lahayn aabe taasaan samaynaya waayahay hooyo taasaan samaynaya waayahay waalid ilmuhu wuxuu doono in waalidkii loo ogolaado nooca afraad waxa weeye waalid argagaxsan oo ilmihii sidaa ugu dhegan guriga kama baxaysid halkaa ma aadaysid ilmi saa waalid saa ugu dhegan marka waxaa muhiima inaynu noqonno waalid macallina oo ilmihii khaladkiisa saxa isla markaana jacayl u muujiya naxariis u muujiya khaladka ilmahana saxa oo aan ilmaha khaladka ku eegan halkan waxaynu uga hadlaynaa mawduuca ilmaha aynu u baahannahay inaynu soo saarno waa ilmo sidee ah ilmaha aynu u baahannahay inaynu soo saarno waa ilmo sidee ah waxaynu u baahannahay marka koowaad ilmo isku filan oo ma garanaysaa isku kalsoon ilmo isku filan oo ma garanaysaa samaysan kara cuntadiisa arrinta aad bay muhiim tahay waalidku inay ka fikiraan ilmahaagu inuu noqdo ilmo noloshiisa ku filan wax kastoo nolosha u baahan tahay samaysan kara hadday noqoto inuu cuntadiisa samaysan kara qolkiisa goglan kara wuxuu u baahan yahay oo dhan samaysan kara ilmuhu inuu noqdo inuu ilmo isku filan oo naga madax bannaan markuu 15 sano jira ilmo aan hooyadii waxba uga baahnayn aabihiina waxba uga baahnayn isku filan noloshiisa oo dhan maaraysan kara inuu yahay arrinta kale aynu u baahannahay waxa weeye inuu ilmuhu yahay ilmo isku kalsoon oo kalsooni buuxda qabta cashar baynu u khaas yeeli doonaa kalsoonida ilmaha da kasta uu yahay sida loo dhiso iyo sida ma garanaysaa loo xoojiyo arrinta saddexaad waxa weeye ilmo dadka la noolaan kara ilmo dabeecad wanaagsan oo dadka la noolaan kara waxaynu ka hadli doonaa iyadana ilmuhu siduu caradiisa u xakamayn karo oo isla mawduuca afraad ah inaynu baranno sidaynu inagu waalid ahaan caradeenna u xakamayno ama xanaaqeenna u xakamayno sidaas oo kale ayuu ilmaheenuna markaa inaga baranaya inuu caradiisa ama xanaaqiisa xakameeyo iyadana cashar baynu ugu gooni yeeli doonaa sida loo kontaroolo xanaaqaaga sida maxaa la yidhaahdaa ilmahaagana loo baro inuu xanaaqiisa kontaroolo waxaa kaleeto aynu ka hadli doonaa mawduuca arrinta kale muhiimka waxa weeye ilmo dareenkiisa cabiri kara ilmo waxa uu jecel yahay sheegan kara waxa uu neceb yahay diidi kara ilmo dareenkiisa cabiran kara arrinta kaleeto waxa weeye ilmo doonitaankiisa xakamayn kara qofna waxa nolosha uu doonayo ma heli karo qof aakhiro ayaa waxa laga helaa naftaadu waxay doonayso walakum maa tashtahi anfusukum walakum maa tadacun bu ilaahi leeyahay yani aakhiro ayaa waxa laga helayaa naftu waxay doonto laakiin qofna adduunka kama helayo waxa uu doonayo sidaa daraaddeed inaan barno ilmaheena inuu doonitaankiisa xakamayn karo waxa aan u baahna hadda ma heli karaa maya haddaanan heli karin inaan sugo waqtigaan heli karo carruurta Soomaaliyeed aad bay arrintaa dhib ugu qabaan waxa ay u baahan yihiin inay markaaba helaan ku celceliyaan waalidka ku dhibaan ooyaan xanaaqaan halkaa dhulka isku tuuraan maya in la baro maya waqtigaas ma aha hadda joog waqtigii lama gaarin marka inuu barto ilmuhu markaa wuxuu baranayaa inuu doonitaankiisa ama rabitaankiisa xakamayn karo arrinta kale waxa weeye inaynu soo saarno ilmo xirfad uu ku shaqaysta leh ilmo khasab maaha ilmuhu inuu dhakhtar noqdo khasab maaha inuu injineer noqdo khasab maaha inuu architect noqdo khasab maaha inuu professor noqdo laakiin inuu ilmuhu xirfad ku shaqaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala risiqa shahaado kuma qaybiyo waxaa jira dad aqoon sare leh laakiin noloshooda uun la soo baxa waxaa jira dad aan weligood iskuul gelin magacooda qori karin haddana hanti badan haysto oo tujaar ah ilaahay subxaanahu wa tacaala risiqa qofkuu doono u badiya qofkuu doonana u yaraya laakiin maxaa muhiima ilmaheenna inaan barnay xirfad uu ku shaqaysto oo uu bini aadamka baryadooda uga kaaftoomo inuu xirfad yeesho wuxuu ku fiican yahay inaynu ku dhiirigelino muxuu ahaa kulana talino waxa maxaa la dhahaa aynu u baahannahay inuu barto arrinta ugu dambaysa uguna muhiimsan waxa weeye ilmo marka aynu la joogno iyo markaynu ka maqannahay isku mid ah oo arrintii aynu ka hadlaynay waalidku hadduu waalid askariya yahay ilmihii waxay noqonaysaa waalidkiis markuu arkayo inuu ilmo fiican yahay si fiican u dhaqma laakiin waalidkiis markaanu arkaynin in wuxuu rabo sameeyey innaga ma aha taynu u baahannahay waxaynu u baahannahay ilmo marka aynu la joogno iyo marka aynu ka maqannahayba isku qof ah wuxuu diidayo diida wuxuu sax u arko sax u arka
aad iyo aad bay arrintaasi muhiim u tahay in yar oo kooban waxaan ka oranayaa dhalinyarada waayo dhalinyaradu waa mawduuc aad u xiiso badan gooni u ah 2-3 cashar baan keligood uga hadli doonaa waxaan rabaa inaan tilmaamo ilmo da'da dhalinyarada gaaray inuu khaldamo waa arrin caadi ah inuu khaldamo khaladaad badan sameeyo waa arrin caadi ah laakiin waxaan caadi ahayn inaanu ilmo qaangaar ah uusan khaldamin taasaan caadi ahayn laakiin waa caadi waa wax nolosha ka mida in ilmuhu markuu xaaladaas ku jiro khaladaad badan ka dhaco inuu cara badan yeesho inuu xanaaq badan yeesho inay noqoto waalidkiis cidda ugu horeysa oo ka hor imanayo oo uu hadalkiis waayo ilmahani wuxuu kasoo gudbay xaaladii caruurnimada wuxuu isu arkaa qof weyn inuu yahay waayo aragnimadii qofkii weynaa weli ma laha waxa uu rabaa inuu boos banaysto oo ismuujiyo inuu yahay qof weyn in la aqbalo in la dhegaysto inay noqoto taladiisu tala aqbalayo marka khaladaad badan baa ka dhacaya waxaa loo baahan in lagu dulqaato waxaa loo baahan inaan la oran ilmihii wuu khaldamay ilmihii sidii qofkan ku aqaanayba maaha ilmihii xanaaqiisaa badan saas maaha waqti bay u baahan tahay in loo dulqaato loo samro runtii cashar dhan baan uga hadli doonaa dhalinyarada iyo xaalaadka kala duwan ay maraan age kasta markuu maro iyo tarbiyad u baahaya laakiin arrinta aan rabo inaan idiin iftiimiyo waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee xilliga dhalinyaradu markay ku jiraan loo isticmaalo oo barbaarinta aasaaska oo waxa weeye wada hadal aan kula hadlo wuu kasoo gudbay waryaa aabba sidaa yeel hooy sidaa yeel wuu kasoo gudbay waxaa loo baahan yahay wada hadal inuu ku dhegaysto adigu aad dhegaysatid markiisa hadlo markaaga hadashid aragtidiisa soo gudbiyo taada aad gudbisid meel dhexe isugu timaadaan khasab maaha in aragtidaada waalid ahaan inay noqoto mar walba midda la qaadanayo laakiin ilmaha aragtidaada wanaagsan inuu kula dareemo dhinac kasta aad uga timaadid aad isku daydid inaad ku qancisid maaha inaad ku khasabtid arrintaa khatar ba weeye ha ku khasbin ilmaha qaangaar ah ama dhalinyaro ah waxaad rabtid laakiin ku qanci waxaa loo baahan yahay sidaan tilmaamay dulqaad badan waxaa loo baahan yahay khaladaadkooda waqtiga in indhaha laga qabsado oo lagu mashquulin waqti weeye way ka gudbaya waxaa loo baahan yahay in loogu dulqaato waxaa kaloo loo baahan yahay in waqtigaa jacayl aad u badan loo muujiyo waayo ilmuhu markuu khaldamo haddaanu helin cid soo dhaweysa wuu sii fogaanaya asxaabta xun buu kusii dhowaanaya haddaanu dareemin ilmihii gurigiisu meel laga soo dhaweynayo oo uu khalad yar markuu sameeyo uu dareemayo inuu magaranaysa ilmihii dambiile yahay haddii khaladka uu sameeyo waalidkii aanu kula dhiirin karin inuu sheego waxay fududaanaysaa inuu maalinba tallaabo hore usii qaado oo asxaab xun iyo dadaan u arxamaynin uu gacanta u galo ilmahaagu ha khaldamo yaanu khaldamin soo dhawee jacayl iyo wanaag u muuji arrinta kaleeto in rabo inaan idin tilmaamo waxa weeye xilliga dhalinyarada in firaaqadooda la buuxiyo in ma jirto qof xumaan sameeya iyada oo ay dadku arkayaan qof waliba xumaanta wuu la gabadaa sidaa daraaddeed ilmaha jadwalkiisa eeg waa inaad buuxisaa xilli uu maxaa la dhahaa iskuulka tegayo xilli uu muxuu ahaa ciyaarayo oo waqtiga uu magaranaysa ciyaar uu jecel yahay uu tegayo hadduu kubadda cagta jecel yahay hadduu baaskitka jecel yahay hadduu orodka jecel yahay hadduu baaskiilka jecel yahay ciyaarta uu ilmuhu jecel yahay in magaranaysaa uu sameeyo waqti wax akhris iyo la sameeyo macnaha inaanay jirin xilli firaaqa ah oo xumaan ku samayn karo inaad ilmahaaga kalsooni fiican siisid isla markaana aad malo wanaagsan ka malaysid haddii uu kaa maqan yahay inaad malo wanaagsan u malaysid oo aadan ka maqnaashaha uu ilmahaagu maqan yahay aadan xumaan mar walba uga malayn waayo fikir xun ood mar walba ilmahaaga u malaysaa wuxuu keenayaa aakhirka in xiriirkiinu xumaado in marar badan adiga oo aan is ogeyn aad ilmaha magaranaysaa khalad ku tilmaantid marar badanna khaladaadka waalidku sameeyaan ama xiriirka dhibaatada xiriirka ee waalidka iyo ilmaha dhex martaa waxa weeye fikir khaldan oo waalidku uu magaranaysaa ku fikiro way dhici kartaba inaanu ilmuhu dembiba lahayn oo beri yahay ilmihii baa soo daahay in waalidku uu xumaan ka maleeyaa rallihada inuu waalidku xumaan ka maleeyaa waxay keeni kartaa in ha dhowto waalidkii isagoo dagaal diyaar u ah ilmihii yimaado xageed ka timi xageed kusoo daahday isla markaana ilmuhu isdifaaco hadhow waxay keenaysaa inuu ilmihii been barto in marka uu ku yidhaahdo saaxiibadii baan la soo sheekaysanaya maya halkaasaad joogtay waxaad samaynaysa marka hadhowto markaad rumaysan weydid
inuu is yidhaahdo kolley waalidkaa kuma rumaysanayo been u sheeg arrintaa marka inaynu ka feejignaado aynu aad isaga ilaalino waa muhiim intaas ayaan waxaan kusoo koobayaa casharkeennii ahaa hordhicii barbaarinta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu